waxaan doonayaa warbixin kooban inaan ka bixiyo inta soo xareysatay positionada aan xayeysiinay muddada hawada ku jiray labada usbuuc positionadaasoo dhowr wasaaradood aan u qaadanayno oo ahaa hay-adda shaqaalaha maxadka hay-adda shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda shaqogelinta wasaaradda shaqogelinta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta wasaaradahaas ayaa positionada loo qaadanaya panelkiina halkan ay wada fadhiyaan oo nagala shaqayn lahaa hawshaas muddo ay qaadanaysaa hawshaasi waa hawl aad u culus ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa ilaahay noo fududeeyo xilkaas gacanta aan ku hayno positionada waxaa soo xareeyey 1500 oo codsadayaal oo ka soo kala codsaday wasaaradaha u soo wada codsaday wasaaradaha imika aan gacanta ku hayno aan hawsha imika aan ka shaqaynayno aniga iyo consultant mashruuc qaatay World Bank oo Simon aan ka wada shaqaynayno. Yes, Chairman and the members of the panel, good morning. I just take this opportunity to thank you for the opportunity to clarify the process that you are doing for the recruitment of the various senior staffs in different government institutions. Just want to say that we've started the process. It's moving on well. The key thing is to ensure that we are open and transparent so that we are accountable to the people of the Republic of Somaliland, to ensure that whatever is required of us, we deliver it faith-free and honestly. And therefore, in my work process, we've put in place controls that to ensure that we achieve that objective at the end of the day. Right now, the process is running very smoothly. We are screening the database of the applicants, and soon we'll be giving a short list of the candidates to go to the final interview process. And I also want to take this opportunity, Chairman, to thank you and your team for the support I've received. I feel at home. Thank you. Yeah. waxaan jeclahay inuu teamkan yahay kooxdii labaad TMB aan qaadano ayay noqonayaan oo tiradoodu ay dhantahay 26 isugu jira agaasimo waaxido head of unit madaxa sectioniska officero loo qaadanayo wasaaradda teamkan waxa la doonayaa insha Allah inay xoojiyaan wasaaradaha loogu talagalay qorshaha marka stage-ka hore waan soo dhaafnay waxaan rajaynayaa in kala xulistooda iyo doorashadooda ay si wanaagsan ugu dhacdo insha Allah waxaan rajaynayaa in si wanaagsan u dhaco waayo mechanismki waxyaabihii keenay in si wanaagsan u dhacdo ayay tan qayb ka mid tahay in panel teamkii la doorto oo gudoomiyuhu chair gareeyo independent HR consultant la helo madax banaan oo support gareeya teamkan si u gudan lahaayeen hawshooda marka waxaan rajaynayaa dardaaranka Ifraax iyo Simon bay sheegeen inuu si wadno oo ah culeysay jiri karaya laakiin inaynu transparent wixii ku wadno daahfurnaan ee noqoto waayo wax la maamuli karayo consultant wuxuu soo diyaariyay all the stage marxaladii ay mari lahaayeen selection oo dhan gudoomiye waa diyaarsan yihiin marka wax musuqmaasuq iyo midnimo geli karay mare one stage markuu dhameeyaba dusha lagala socdaa dib baa loogu noqon karaya waa la refer gareyn karaya xitaa stage 1 markuu dhameeyo long listing markuu soo saaro waa la eegi karaya waa la istaagaya haddana short listing baa imanaya waa la istaagaya because istaagaas wuxuu noo keenayaa in la jeeg gareyn karayo short listkii baa lagu noqon karaya su'aaluhu haddana diyaarinaya su'aalaha markuu diyaariyo xitaa laftigooda waa la istaagaya we can stop because waxaan u istaagnaa face uga dhignaa in dib loo sixi karayo la isqaban karayo haddii kale la iska socon karayo khalad dhici karayo talabaad waxaan panel teamkan waa dadyo kala duwan waxaa la diin keenay inaad riixi karasaan agaasimaha waaxda markuu ka socdo wasaaradda qorsheynta uu oran karayo su'aasha ma bogine CSI su'aashaas maxay ku jeclaatay marka different people panel laga dhigo waa wax adag bay keenaysaa inaan la soo wada raacin oo ujeedo gaar la wada yahay inaan halkan isugu nimaadno inagoo la xijeclo kale qarankeena u turayna horumarkeena talaabooyinkan horumarkeena ku higsanayno oo ay qayb ka tahay inaynu si cadaalad oo garsoor wanaagsan ah ugu xaq sooro dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee naga soo dalbata shaqooyinka
xilligii waxay ku beegantay tii hore aynu qaadanay aan xafiiska imi anugu sabab ay u dhacday mooyii iyadoo lagu dhici waayo oo liisku inta la xayeysiiyey 6 bilood uu yaalo liiskii dadkii soo codsaday soo dalbaday shaqooyinku ayaa xafiiska aniga gudoomiye la magacaabay shaqo taalana deed indha ka qarsato culays iyo ceeb kasta halaad haddaad cadaalad sugayso wax kasta oo ceeb ah kaga yimaada laakiin waa inaad cadaalad ya oo de quraanka iyo diinta ku jirta mid canaantiisa ka baqan haddaad adu hanuunsantahay marka waxaan shiri warday haddaan waxba meesha ay cadaalad sugayso ku dhac oo dhaqaaji oo inuu dhaqaajina waa run sida Cabdi sheegay waxda recruitment ka hay'adda shaqaaluhu agaasimo waaxeedkaasi ma jirin wuxuu ahaa waxa kamid ahay dadkii marka lagu soo xulay processka laftiisa alxamdulillah maanta waaxdi baa lead garanayso inoo jirta oo hawsha oo dhan maartay leadka waxaan rajaynayaa idinku dardaarmayaa iyadoo dhaar la idinku dhaarin doono in cadaaladda sugaysaan oo qaranka uga wakiiltihiin dad u cuntama oo xula oo sida loo qoray positionada loo dooriyo wasaaraduhu soo dalbadeen ugu xushaan kitaabka ilaahay baa la idinku dhaarin doonaa biidnillaahi tacaala aniguna waxaan idinku dardaarmayaa ina ila aakhiradiina uga baqataan adduunyadiina ku ilaashataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga baqataan si lillaahiya ina arintaas 1500 ee soo dalbaday shaqo ee dhalinyaro iyo aqoon-yahana ee 26 ka position soo dalbaday wasaaradda tamarta wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqagelinta gaashaandhigga wasaaradda qorsheynta hay'adda shaqaalaha dawladda maxadka shaqaalaha maaliyaddu kuma jirto maaliyaddu waxaan soo galeynaa waxa weeye maadaama lacagtan la siinayo mushaharkii wal banku bixinaya waxay martaa wasaaradda maaliyadda iyo xisaabaadka iyaga marka anagu check ma saxeexno iyaga saxeexa iyaga martaa xisaabaadka martaa maaliyadda martaa marka sababtaas aan u soo galinay accountable in loo noqdo iyadana sababta waayo haddaan sidaa la isugu celino check and balance systemka loo ilaalin qarankeenu dhismi maayo oo qofba meeshu hay la sii jeesto marka annaga ku soo daray anaa go'aansaday oo ku soo daray oo wasaaradda maaliyadda waa in cid ka joogta si ay ula socdaan lacagta ay bixinayaan sidee loo qaatay shaqaalaha lacagta siinayaan iyadoo haddana xisaabta World Bank ka baxaysa mashruucan marka dardaarankaygu waxa weeye ina dadaal badan la gelisaan daacadnimada ku shaqeysaan waa la idin soo hadli waxba la idin soo sheegi dhagaha ka furaysta idinkoo ilaahay ka baqayo xusuusan dhagaha ka furaysta haddii cidi faragelinayso dee anaa kii weynaayo faragelin lahaa xaraam ma dhacayso qof idinku soo faragelin karaa ma jirto nidaamkaasaan aynu doonaynaa wixii inaynu qarankeena ugu adeegno inaynu ku wadno si dhalinyaradu ugu qanci karayso iyo aqoon-yahankuba in wixii kii waayana uu ku qanco kii helaana inuu cadaalad ku helo inuu cidi keenin ama reer keenin ama dana kale lagu keenin inuu aamino taas biidnillaahi tacaala waxaan jeclahay qof waliba kitaabka hor yaalay inuu gacanta saaro waxa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi inaan shaqo xulista qorshaha loo qaadanay si daacad oo la kacabsi leh aan uga soo baxayno annagoo u turayna qarankayaga ilaahay kaga cabsanaya ciddii cadaaladda ku soo baxda ee xaqsiyana aan ugu garsoori doono inay ku soo baxdo aad baa mahadsantihiin